marka ugu horeysa waxaan jecelahay in aan si ballaaran ugu mahadceliyo guud ahaan jaaliyadda reer Somaliland rag iyo dumarba halkan ku nool dalkan Masar gaar ahaan ardayda halkan wax ka barata soo dhaweyntii diiranayd ay noo fidiyeen iyo wada shaqayntii intii aniga iyo halkan dalka Masar inta laga joogay aad iyo aad baan inta marka hore idinka mahadcelinaya marka labaad waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dowladda Masar خاصة الحكومة الدنيا كسب إنه مصر كتير يورا شقيته بالتبرد أحمد في يبقى يدولد الصومالي وركي جودي الضغط حس بس هو آدي أدونا كسر جوا الربع هي وحقاتي حكومة الدنيا أنتي جبت خلطة أنا أنت بلندت كيلو ذات حوالتي زي حسب شغل كوريا وحنجعلها أنا قلنا أبارو مركو ورث السفر كانوا كنا ندي وجدريس وهالقول مكمريو يتلاوين كم سنة ويكسر بحكرة والدولة يقارن كيدك والضمبي يقولون هكران يجود هالسياسة دا أرمها قرن كوريا لما أنت سياسة دا عالمك تقولك يتسمى لامبا أي كم تدعي إن وحكة تعبت مركب ورثة السفر كان سيد الله يشجعه ويقدم بمنطقات رسمية وحكومة أسب دولة مصر مكتير تاع أسوق بس دولة الصومالية أنا قلنا سلام كل من حوالي أنا وكيل كا الصومالية أيام هالكن كل وحنا مرتونا هاي دولة مصر si aad iyo aad wanaagsan loo soo dhaweysay ilaa imika wada hadaladii iyo hawlihii halkan ay si aad u fiican u socdaan ujeedada ugu weyn ee safarku waxa ay koow in aanu xiriir dhinacyo badan leh oo cusub aanu la yeelno haddaan nahay mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliland inaanu la yeelno dalkan Masar xukuumadda cusub ee maanta ka bilowday sida ka warqabtaan siyaasadda Masar imika waxay gashay nidaam cusub وكدون تاريخ كدون سيدي عندتي وحلا فريا إن حكومة الأسب هي دولة شو كان صعداء يستدل هذا صعداء إن كان يعني إن دولة مصر أي ديمو أكتر مواقف تي أي كقاعدة جرتي عرما بدن وعالمك هوري هذا ده قارة أفريقيا ده عربتا هي ده المشكلة هي حصرها كدولة كتاجرين طبعا وقد يد السومال لأن كم يتعي عرماها ديمو أبي سدولة مصر waxaan anagu istusnay oo aragnay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliland ay la timaado fikrado siyaasadeed iyo hindisiyaal cusub oo lagu isboonisiinayo xiriir dhex mara dowladda Masar iyo dowladda Soomaaliland oo aan ku baaligoobayna inuu manfacaad iyo waxtar u yeesho shacabka Soomaaliland oo idinku safarkayga ujeedadiisa ugu weyn taas yahay تكرر واحد مثلا واحد كم تاعي مالها فرقترس جالية حب بدن أو تعليل ويمد أو سوماليلاند كيمد يكونوا ريد كمصر يلا يروح وضم القارس الماليزيا وكلية هندية ومالها تدك أنت بدن أي تعليم وترى هاي جالية كونه سنة دارك يوروب وكله كل رقم لكن تدك أنت قارئين تبع حباش وطبعا dadkii yimaadana ay dadkii maskaxda iyo aqliga iyo xoogga dalkan imika oo mustaqbalka oo noqon doona marka inaan idin nimaadno idin warrano idin kala xog waraysi iyo talaba aan idin weydiino xaalkiina wixii aan ku kordhin karno ee taa ee taayta aan wayna iyo daan tahay midaan oo garabsan dowladda Masarba in intaba aan ku beerano is aragno oo la shaqeysto oo tashado ayaa iyana ahayd ujeedada kale weyn ee dalkan halkan u leeyahay فرحنا على بدي وجدونا سيف عنا وصعدا حاجة دولة مصر مركان كوري في مكان جوبلي وحنرب الأمي وهذا الرسمي ولا وضع حكومة الأحمر خاصة وزارة خارجية دولة وأنا مرتوى هاي ولا هذا الله أنا مسلم هاي وحكت الجميع باهدة سوماليلاند أيام نوبل أمي مانتا والناس يسعون إلى بريطانيا
jaaliyadiina xubno ka mid ah ayaa shirarkii qaar maanta aan ku casuunaysay ay la socdaan dadaalka xukuumadooda wado iyo danaha dadka halkan ku nool si aan xoogaal ugu noqono oo aan dowladda Masar aan ka hadalno mas'uuliyiinta ardayda iyo jaaliyaddu way xubno ka socda shirarka iyo howlaha maanta qayb bay ka hayaan ragay waxaan rajaynayaa wax kuwa ka soo baxaan oo dalka u xutara qadiidiin way ka mid arrimahan ka hadlayni waxyaabaha dalka ugu baahantiin hadday tahay tacliinta hadday tahay xanaanada kale iyo hadday tahay taakuleen xukuumiya oo dalka Masar gasha aad baan ugu mahadnaqaynaa si fiican dowladda Masar ay tacliinta idin siisay halkan dalka Masar tasafarka markaan inta ugu gudbo guud ahaan dalku warbixin buuxda oo comprehensive halka laga bixiyay xirsi ka bixiyay halka waxba ugu noqon maayo waxaa si jira dalku waa nabad nidaam dimuqraadiyad oo wanaagsan la dalka in muddo uu ka socday oo waxtar iyo nabadgelyo u keenay waxaan rajaynayaa in nidaamyadaas ay sii kordhaan oo waxtar dalka u yeeshaan hase yeeshee arrimo badan baa dalka iyo ummadda horyaala wax ka qaban iyo talo iyo fikir iyo qorshaba looga baahan yahay hadday tahay xukuumad hadday tahay golayaasha qaranka hadday tahay mutacalimiinta hadday tahay qurbi joogga iyo hadday tahay cid walba oo dalkan u dhashay tawa Soomaaliya مثلا waxaa ka mid ah marka laga hadlayo xagga nabadgelyada inkastoo ay nabad qabno haddana Soomaaliland waxay ka mid tahay mandaqad ay ka jiraan arrimo badan oo xasiloon dari oo dagaalo sokeeye leh oo nidaamyo kale oo badeeda oo argagixisay oo nidaamyo kale oo nabadgelyada wax yeeli kara leh ayaa ka jira mandaqada Geeska Afrika oo Soomaaliland ka mid tahay oo arrimo u baahan in qaranka iyo dalkuba ay tala iyo arrimo ka yeeshaan waxaa kaloo jira dhaqaale xumo keentay in dad fara badan oo dhalinyari iyo mujtamaca kaleba ayna haysan shaqooyin fara badan oo noloshooda wax ka qaban kara oo arrimo dalka hortaagnay qof especially dadka dhalinyarada tacliinta bartay jaamacadaha ka soo baxa noqon lahaa xoogii dalka u shaqayn lahaa ee joogay arrimo xagga shaqo dhaqaaluhu keenay baa jira oo shaqo la'aan waxa kaloo dalka haysta oo aan weli ku guulaysan inuu xubin buuxda oo caalamka ka tirsan siyaasiyiin uu noqdo waxaan isleeyahay arrimahaas waa arrimaha ugu culus ee qaranka maanta u yahay oo nabadgelyo darrada ka jirta mandaqada Geeska Afrika waa dhaqaale yaraan aan suuro gelinay in dadka laga wada shaqaysiiyo si dhaqaalaha dalka u kordho iyo dalkii oon siyaasiyiin weli bulshada caalamka aan xubin buuxda ugu noqon waa arrimo dowlad iyo qaran iyo shacab iyo mutacalimiin idinkaba u baahan in laga talagalo wax ka qabashadeeda xukuumadda Soomaaliland maanta jirta waxa ay markii ay aragtay arrimahaas inay u baahan yihiin fikir xukuumadeeda dalka lagu horgalo lagu hogaamiyo waxaan qaadanay in ay Soomaaliland noqoto dal aragtidiisa iyo fikradiisa ay ka dhex muuqato mandaqada Geeska Afrika iyo caalamka oo aanan adduunyada uga maqnaanin aqoonsi baynaan helin awgeed laakiin xukuumaddu in ay dalka iyo shacabka ku horgasho in fikirka iyo talada iyo magaca Soomaaliland uu noqdo mid la falgalo oo la ka muuqda hadday tahay Geeska Afrika iyo hadday tahay Afrika inteeda kale iyo hadday tahay caalamka arrimahaas waxaan isleenahay imka muddadii sanadka iyo barka aynu jirnay waxaa ka galay oo ka suroobay in ururka IGAD oo ka mid ah urur goboleedka wadamada Geeska Afrika oo dhan ay ku wada jiraan iyo Soomaaliland marka waxaa ka dhaxeeya wada shaqayn iyo howlgal labada dalka iyo IGAD isku xidhaya oo mashaariic dalka ka socota oo IGAD ay wax ka qabataan oo jiraan shirarka IGAD oo dalka Soomaaliland uu fikir iyo talo iyo fuudba ku leeyahay wixii macquul ah ee suuragal oo u badan shirarka xagga farsamada u badan in Soomaaliland waxay ku leedahay ka qaybgal bay ku leedahay hadday tahay ururka Afrika midowga Afrika oo beri report wanaagsan ka qoray dalka 2005 hase yeeshee nasiib darro ururkaasi reportka muu dhaqan gelin arrintaana dib dalku imka uu kala hadlay ururka midowga Afrika waxaan rajaynaynaa in arrintaasi ay golayaasha ka mid ah golaha midowga Afrika khaasatan qolada xagga siyaasadda iyo nabadgelyada in mar labaad qadiyaddu ay hor timaado iyana socdaha howlo ku saabsan xagga wadamada carabta dalku wuxuu imka xidhiir bilow oo cusub la yeeshay dalalka khaliijka oo dalka Imaaraadku ka mid yahay dalka Kuwait ay ka mid yihiin oo intaba wufuud
إلى هير مدحوينه له أي تجاني وزير ربع waxaana arrintaasi bitooyinka keentay taakuleen xagga dhaqaalaha oo dalka soo gaaray haddii xagga biyaha tahay oo imika dalka ay mashaariic biyo xoog leh dalka ka wadaan wadamada khaliijku iyo hadday tahay xagga dhismaha infrastructure dalku u baahan yahay garoomada diyaaradaha oo kale oo dalka Kuwait isna uu bilaabay inuu imika garoonka Hargeysa iyo Berbera imika uu casriyeeyo arrimahaas waxaan sheegnaa waa arrimo furfuraya qadiyadda Soomaaliland waa arrimo keenaya inay saaxiibo berigii hore aan dalka iyo qarankuba aan markii hore aynaan lahayn inay soo kordhiyaan ayaa moodaa iyadoo taa laga duulayo safarkan halkan aan ku nimid dalka Masar oo sidii xisibo ka hadlayay u muuqda inuu yahay safarkii ugu horreeyay xukuumi ah oo aynkaasa dalka lagu yimaado isla waxaan rajaynaynaa in uu xiriirkii caalamka carabta uu sii kordhiyo oo Masar sida idinku kala qabtaan waa magac weyn iyo maamuus ku leh dunida carabta iyo Afrikaba oo ki jaamacadda carabta isna halkan ka jira waxa soo dhan waxay u baahan yihiin waa meel qaran u baahan yahay inuu gaaro fariintiisu gaaro hadalkiisu inuu gaaro in qorshayaasha iyo siyaasiga iyo siyaasada dalku inay gaaraan marka waxaan rajaynaynaa in siyaaradeenna insha Allah inay iyana kordhin doonto isku xilka caalamka carab iyo Soomaaliland shacabka Soomaaliland dalka markaan ugu gudbo dhinaca Yurub iyo Mareykanka oo horeba runtii ay dalka uga dhaxayn jirtay iyada dhafteeda waxaa muuqata imika in halkaa lafteeda laynaga soo jeedo oo wax qabashadii iyo shaqayntii ay intii hore ka badatay muddo aad imika u yar dalka waxaa si aad kala qabtaan booqasho had iyo jeer ku yimaada wufuud badan oo wasiiro leh oo Ingiriis leh Denmark leh Sweden leh cid walba oo Holland leh oo wadamo fara badan leh intuba waxay muujinayaan in موقفka wadamadaas ay ka taagan yihiin Soomaaliland arrimaheeda qadiyadeeda hadday tahay mid siyaasadeed hadday tahay mid taakule iyo dhaqaale iyo hadday tahay mid istiraatiiji ah in isbedelo wanaagsan ay ka socdaan baa mudda waxaas waxay ka tarjumayaan dadaalka iyo sharafta iyo nabadgelyada ay shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin ayay ka tarjumaysaa nabadgelyo oo dimuqraadiyad leh oo horumar kale leh oo tacliin leh oo wax walba leh ay arrimahan ka tarjumayaan waana arrimo lagu soo gaaray wada jir aan cid gaar iyo xisbi gaar iyo ummad gaar iyo group gaar iyo magaalo gaar ay keeni karin hore u keenin imika aan keeni karin oo lagu gaari karo iskaashi iyo wada shaqayn iyo wada tashi lagu gaari karo arrimaha kale sida yahay dalka imika waxaad moodaa in ay waxtar weyn u keeni karaan waxa weeye inaga oo dowladda in maalgashi buuxa dalka lala yeesho oo si arrimihii aan ka hadlayay xagga shaqada iyo daryeelka kale shaqaalaha wax laga qabto ama dhaqaaluhu kor u kaco waa in Soomaaliland khayraadka ay leedahay aynu dunida u soo bandhignaa koo waa in dalku imika yeeshaa siyaasad sida imika ka muuqata siyaasad maalgelin oo cad oo dhiirigelinaysa in sharaa'iga iyo wadamada kale caalamku ay dalka yimaadaan oo ay maalgashi sameeyaan idina keligeed ma horumartay dunida dal waliba wuxuu u baahan yahay inuu dunida iskaashi iyo wax wada qabsi la yeesho marka xukuumaddu waxay ka shaqaynaysaa in khayraadka dalka oo bad leh oo macaadinta dhulka iyo saliidaba leh oo xoolo leh oo kalluun leh oo arrimo kale leh in intaba loo helo maalgashi gudo iyo mid dibadeed intaba si markaa dhaqaalaha dalku u kordho dalkuna ay shaqo ka helaan taasaana keenaysa in guulaha shacabka Soomaaliland ay sameeyeen nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo dowladnimadaba leh in la adkeeyo oo la horumariyo oo la sustain gareeyo waxaa keenaya waxa weeye in dhaqaaluhu kordho in shaqada la kordhiyo in tacliinta la kordhiyo arrimahaas waxay u baahan yihiin in aynu yeelno aqoon iyo tacliin keeni karta in nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo waxbarashadu ay hagaagaan waxaan aad ugu faraxsanahay halkan in bulshadiina halkan dhalinyaradiina halkan joogtaa hableeyayna noole jaamacadihii dalka ugu wanaagsanaa ku jirta iyadoo Masar ay xagga tacliinta marka laga hadlayo ay tahay wadamada ugu wanaagsan tacliinta wadamada dunida inta wadamada soo koreeyay carabta iyo intaba intiina soo rag iyo dumar baa imika ku jira jaamacadii dalka waliba markii warbixinadii aan dhageysanay guddiga ardayda iyo idinkaba cilmi iyo aqoon dunidu maanta u baahan tahay
dhaqtarnimo tahay hadday arrimo kala tahay hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay hadday arrimaha bulshada tahay hadday farsamooyinka kale ee dalku u baahan yahay intaba tahay aan aaminsanahay inay yihiin kuwa dalkan horumarin kara marka dalku maalgashi helo nidaamkiisa siyaasiga iyo nabadgelyaduna ay sidaa imika u socdaan ee wanaagsan usii socdaan waxaa loo baahan yahay waa skillskii iyo waaraagnimadii iyo hogaamintii loo baahnaa in lagu gaaro darajada dambe ee xagga horumarka taasina in aqoontiina halkan ay ka turjumayso in arrintaa aan markaan dadka caynkaasoo kale aragno waxaa noo muuqanaysa marka dadaalka ay xukuumadda iyo shacabka iyo dalkaba ka socda inuu helayo cid ka midho dhalisa oo u bedesha markaa waxtar dhaqaale iyo income iyo nabadgelyo iyo sharaf iyo hogaaminba u bedeli karta muddo dheer jiri karta waxa weeye markaan aragno mutacalimiintiina iyo ardayda dunida Soomaaliya ugu maqan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah